madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ay wehelinayeen qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda talada dalka isagoo ka mid yahay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kormeer indheendheena ku soo maray ballaadhin lagu sameeyo dhabaha diyaaraduhu ka hadaan madaarka magaalada Hargeysa. Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland oo kormeerkaasi indheendheeta kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ballaadhinta lagu sameeyo dhabahaasi. Aanu maanta bilownay ballaadhintii runwayga qaybtii ugu dambeysay oo ah asfa balaanka. Shaqadan maanta aynu halkan ka bilaabayno 1250 mitir runwayga madaarka caasimadda Cigaal International Airport lagu darayo waxa weeyaan oo ka kooban laba leeyar oo kan hore yahay 6 ka dambana 4 sentimitir yahay. waxa muddo sanad ku dhow laga shaqeynayay wadadaas ama dhabada cusub sidii loo soo dhisi lahaa. Shaqada intii adkeyd waynu soo qabanay waxay ahayd dhagax adag in lagu soo dhiso 70 sentimitir muxuu ahaay 70 in lagu soo dhiso waa la soo dhisay. Shaqada adag taas ahayd. shaqadan maanta aynu dhigaynaa waa shaqadii wajigii labaad. waxaan rajaynayaa bil gudaheed in uu garoonkani ku dhamaado qaybtaas. Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ku amaanay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada inuu muddadii uu hayay xilka wasaaraddaasi uu horumar la taaban kale ka fuliyay buu yiri garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. duulista iyo hawada oo runtii muujiyay wasaaradahan waxaan la filayn inuu qabsoomi karo. waayo waxa ka mid ah maanta halka aynu taaganay madaarkaas sidoo ahaan walba uu garanaya haddaad dhismihiisa gudaha eegto haddaad wadooyinkiisa eegto aad iyo aad baan u hambalyeynaya wasiirka wuxuu madaarkeenu maanta u dhigan yahay maxay madaaradii caalamka. geesta kalena Cabdiraxmaan Abdullaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay runtii waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in ballaadhintii degada diyaaradaha Cigaal International Airport wajigii u dambeeyay maanta la bilaabay runtii oo muddo soo socotay hawl adag laga soo qabtay runtii. waxa maanta ummadda reer Soomaaliland dhammaan guulo ah in maanta wixii bil ama 2 bilood ama bil ay barka ku sugan intii ka dambaysa inuu airportka noqday airportkii buuxinayay dhammaan shuruudaha airportada caalamiga isla markaana adeegyo badan ama wadooyin badan oo qalqalcoon la soo mari jiray laga reysan doono insha Allah.